iyo waqti xaadirkan dalka ka jirta ayaa warbixin soo saaray. Waxa warbixintiisaasi uu goluhu ku sheegay in shirkii hadda ka hor sane koodeeda 2014 ee golaha amniga qaran ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya in la qabto uu diiradda saaray ee uu dejiyey inuu qiimeyn ku sameeyey siday u qabsoomeen. Shirkaasi sane koodeeda 2014 arrimaha diiradda la saaray ee la dejiyey in la qabto waxaa ka mid ah 7 qodob oo kale ah in kooxaha argagixisada ee hubaysanayaasha hogaamintooda diiradda la saaro oo la baabi'iyo, in baaritaan lagu sameeyo sababaha ugu waaweyn ee keenaya kuwa xoogagga ammaanka ka goosanaya ee cadowga ku biiraya ee cadowga awoodda u noqonaya, in qaybaha kala duwan ee bulshada wadahadal lala yeesho oo si wada jira loogu dadaalo sugidda amniga iyo sidii loo dhimi lahaa waxyaalaha qaska iyo qalalaasaha keeni lahaa ee deganaanshaha loo abuuri lahaa. Qodobka kale wuxuu ahaa in la ogaado qaybaha halista kuwa amniga naftirkooduna ka qayb qaadanaya in lala hadlo oo qaybtaas ama dhaqdhaqaaqaasi laga dhigo kuwa dibadda ka ah, in sidoo kale muwaadiniinta sababaha kala duwan ku soo barakacay goobahoodii lagu celiyo, in kaabayaasha iyo qaabdhismeedyada dawliga ee burburay dib loo dhiso, in kontrabaanka, khayaamada dhinaca dhaqaalaha, boobka, dilka iyo is-abaabulidda aan caadiga ahayn iyo wixii la mid ah iyo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada tallaabo laga qaado oo xididada loo siibo, in qaybaha cadaaladda iyo amniga sixitaan lagu sameeyo oo waddada ama tubta saxda ay saaraadaan. Haddaba golaha ammaanka ee qaranku kadib marka uu qiimeyn ku sameeyey waxa uu ogaaday oo u soo baxay in heerarka kala duwan ee federaalka iyo deegaanada ammaanka, nabadgelyada, tallaabooyinka la qabtay iyo dhaqdhaqaaqyada la sameeyey ay ahaayeen kuwa natiijooyin wanaagsan ka soo baxeen oo ammaanna uu soo jeediyey. Waxa uu goluhu soo qaaday deegaanka Oromiya, xoogga ammaanka ama xoogagga gaarka ee deegaanka Oromiya oo la shaqaynaya ciidamada gaashaandhigga in natiijooyin waaweyn ay ka soo hooyeen la dagaalanka kooxda argagixisada ee Shane. In tallaabooyinkaasi deegaanka Oromiya laga qaaday 3,180 hubaysanayaasha kooxdaas argagixisada ee Shane in la qabtay oo la xidhay, kuwa diiday inay soo dhiibaanna in la baabi'iyey. Sidoo kale in xubno badan oo lagu tuunsan yahay inay xidhiidh la leeyihiin Abatorbe, Al-Shabaab, Juntaaga iyo Shane iyagana la qabtay oo tallaabooyin laga qaaday. Waxaa kaloo la sheegay in howlgalkaasi deegaanka Oromiya laga fuliyey hub badan oo koox ahaan iyo shakhsi ahaanba loo adeegsado, rasaaso, baabuur, lacag iyo hanti kala duwan cadowga laga qabtay oo lala wareegay. Waxaa kaloo qiimayntaasi uu goluhu sheegay inuu ku ogaaday in 1739 maamul xaafadeed oo dhibaatooyinka dhinaca amni darrada ah ka jiray ku burburay 2,255 dib loo abaabulay. Sidoo kale 252,129 xubnood oo ka tirsan 47,558 qoys in lagu celiyo goobahoodii hore oo hadda ka hor soo barakacay. Sidoo kale in deegaanka Axmaarada howlaha ilaalinta sarreynta sharciga natiijooyin waaweyn laga soo hooyey oo xoogagga ammaanka, hogaaminta iyo shacabka oo si wada jira u shaqeeyey in la tuumayaal badan sharciga la hor keenay, kuwaasna ay ka mid yihiin qaar ka mid ay ku jiraan kuwa xoogagga ammaanka ka goostay oo cadowga ku biiray oo cadowga awood u noqday, iyo kuwa dembiye kala duwan loo raadinayey oo iyagana gacanta lagu dhigay, in kuwa ay jiraan wayaane ama TPLF argagixisada la shaqaynaya oo dadka iska hor keenaya sidoo kale la tuumayaashaasi gacanta lagu dhigay oo sharciga la hor keenay. Sidoo kale arrimaha ama codsiyada ka jira dhinaca shacabka loo yaqaano qimaantiga iyo shacabka qowmiyadda Oromada ee deegaanka Axmaarada ku nool, arrimahoodana in shacabka wadahadal lagala yeeshay oo la dabciyey. Guud ahaan waxa uu sheegay golaha amniga ee qaran in la qabtay masraxyo kala duwan oo dadweynuhu ay ka qayb qaateen dad tiradu ay kor u dhaafayso 6.6 milyan oo qof. Waxaa kaloo la sheegay in tallaabooyinka dhinaca amniga iyo nabadgelyada ee magaalada Addis Ababa laga qabtayna natiijooyin waaweyn laga soo hooyey. Sidoo kale in deegaanka Benishangul Gumuz dhibaatooyinkii amni darrada hadda ka hor ka dhacayey dadaalka ballaaran ee la sameeyey in hoos loo dhimay oo xaaladda nabadeed iyo amniga waqti xaadirkan deegaankaasi Benishangul ka jira uu meel sarreeya marayo uu wanaagsan yahay. Waxaa la sheegay in deegaankaasi Benishangul kooxaha argagixisada ee ka dhaqdhaqaaqeen nabadgelyo darrada abuuraya in laga qabtay noocyo kala duwan oo huba oo tiradu gaaraysa 749 iyo 5,639 oo noocyada kala duwan ee rasaasta la ridaa iyo 65 dooma iyo weliba kaamam kala duwan oo laga burburiyey. Waxaa kaloo warbixintaasi ay sheegaysaa in deegaanka koonfurtana natiijooyin wanaagsan laga soo hooyey dhinaca nabadgelyada iyo amniga. Warbixinta oo ka hadlaysa dhinaca deegaanka Soomaalida in deegaanka Soomaalida shacabka iyo hogaaminta sare ee deegaanka iskaashanaya ay kahortag wanaagsan oo sarreeya ku sameeyeen dhibaatooyinka dhinaca amniga ama meelaha halistu ka jiraan iyo sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinkaasi iman kari lahaa ama loo joojin lahaa. Waxay warbixintu sheegaysaa in hamle 14keeda 2014 argagixisada Al-Shabaab oo deegaanka Soomaalida gobolka Afdheer, Baari, Goodgood degmooyinkaasi inay ka soo dustay isku dayday in xoogga gaarka ee deegaanka Soomaalida
uu door sarreeya ka ciyaaray oo la baabi'iyey xoogagaasi argagixisada ee al-shabaab. waxaa kaloo warbixintu sheegaysaa in deegaanka soomaalidu uu dadaal sarreeye ka muujiyey dhinaca baraarujinta ka qaybgelinta shacabka iyo sidii looga hortegi lahaa cadowga oo casharo wanaagsan ee maamulka deegaanku bixiyey. waxaa kaloo la abuuray buu yidhi komandiyo boostiyo uu ka qayb qaatay xoogaga ammaanka ciidamada gaashaandhigga ee dalka. waxaa howlgalladaasi argagixisada al-shabaab ka dhankaa lagu baabi'iyey 813 hubaysanayaal oo argagixisadaasi al-shabaab ka tirsan iyo weliba 79 al-shabaab ka tirsan oo gacanta lagu dhigoo lasoo qabtay. sidoo kale waxaa lagala wareegay noocyo kala duwan oo hubka, kuwa sida wadajirka loo isticmaalo iyo kuwa shakhsiga loo isticmaalo, rasaasyo noocyo kala duwana, miinooyin, raadiyayaasha xidhiirka lagu sameeyo. sidoo kale waxa uu golaha amniga ee qaran uu ogaaday in la xoojiyey tallaabooyinka ka dhanka la dagaalanka dhinaca kontarobaanka, balse in loo baahan yahay in wax laga qabto sidii loo xallin lahaa isku dhacyada qabaa'ilada dhex mara, oo maamulku uu dadaalkiisa kor u qaado sidii arrimahaasi dadaal dheeraada looga geysan lahaa. sidoo kale waxa uu golaha amniga ee qaran uu ka wada hadlay xaaladda ka jirta deegaankaasi canfarta iyo dhaqdhaqaaqa loo galay xakamaynta kontarobaanka iyo weliba ilaalinta ammaanka waddada isku xidha etoobiya iyo jabuuti. sidoo kale inuu qiimayntiisaasi ku ogaaday golaha ammaanku in deegaankaasi canfarta deegaanada la deriska uu wada shaqayn wanaagsan oo dhinaca amniga la yeeshay, uu dadaalkaasi iyo iskudaygaasina meel sare marayo, balse in qaabkan kontarobaanka sharci darrada loo fuliyo uu noocyadiisu ay isbedbedelayaan, qaabkiisuna uu fidayo. saas awgeed in loo baahan yahay in dadaal dheeraada loo galo iyadoo wada shaqayn lala yeelanayo xoogaga ammaanka. sidoo kale deegaanka canfarta in loo baahan yahay in isku dhacyada qabaa'ilada dhex mara iyadana la xalliyo. gooluhu waxaa kaluu ka hadlay xaaladda deegaankaasi Tigray, dadaalka ay dowladdu ugu jirto in dhibaatooyinka waqooyiga dalka ka jirta xal nabadeed loo helo. waxa uu gooluhu soo saaray arrimaha loo baahan yahay mustaqbalka in dowladda iyo shacabka iyo xoogaga ammaanka iskaashanaya ay fuliyaan. waxaa ka mid a qodobadaasi 8 qodob oo ay ku jiraan in argagixisada iyo hubaysanayaasha sharci darrada ah la baabi'iyo, lala dagaalamo oo la gaadhsiiyo heer ayna halis ku noqon karaynin, in shacabka wadatashi lala yeesho oo shacabka iyo xoogaga ammaanku ay hubaysanayaasha soo jiidashadooda iyo ka dhaadhicinta inay khaldan yihiin, ka qaybgelinta dhallinyarada ee howlaha nabadgelyada in kor loo qaado, saasna loogu xaqiijiyo nabadgelyo waarta.